safarkan uu wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdinuur Sheekh Maxamed uu ku tagay waddanka Zambia ayaa ka dambeeyay kadib markii khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay madaxda safaaradda Soomaaliya ee waddanka Zambia. booliska magaalada Lusaka ayaa horaantii bishan aan ku guda jirnay irdahaas ugu dhiftay safaaradda kadib markii muran xooggan uu soo kala dhex galay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada Lusaka ee waddanka Zambia. xafiiska TV-gan caalamiga ee Universal uu ku leeyahay waddanka Koonfur Afrika ayaa xiriir la sameeyay wasiir ku-xigeenka si uu u ogaado muranka hareeyay safaaradda Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in safaaradda loo magacaabo safiir cusub ay xaliyeen khilaafkii u dhaxeeyay madaxdii safaaradda, isagoona umurahaasi uga warbixiyay TV-gan caalamiga Universal. ka sheekeyn ma aha oo ka sheekeyn ma karo safaaradda waxa ka dhacay, laakiin in arrintaas ay dhacday si wanaagsanna lagu xaliyey oo si diblomaasiyad ah loo xaliyey waxaan ku sheegi karaa. hadda safaaradda ma safiir cusub ayaad u magacaawdeen mase safiirkii hore ayaa jooga? safiir cusub baa loo magacaabay oo imaan doona insha allahu tacaala waqti aan saas u fogeyn hadduu ilaahay yidhaahdo. ma noo sheegi kartaa magaca safiirka cusub ee haatan la magacaabay? safiirkaas waxaa la yidhahdaa Dawaare, ambassador Dawaare la yidhaha. mudan wasiir, waxaana loo sheegay in khilaafka markii uu soo kala dhex galay mas-uuliyiintii xilligaasi ku sugnaa safaaradda ay soo faragelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Zambia. maxaa ka jira wararkaasi? maya adeer, waan kuu sheegay waana kuu sheegaya hadda waan kugu soo celinahay. dowladda Zambia wax hawsha aan dowladda TFT-da la shaqeynta ay la shaqeynayso oo wixii loo keeno cidii loo keenayo cidii laga qaadayo dowladda Zambia shaqo kuma laha, marnabana shaqo kuma laha. saa u ogaada dowladda Zambia wax hawla oo arrintaas tahay. hadda safaaradda ma shaqeynaysaa marka? safaaraddu waa normal, qofkii u tagay safaaradda walba waxaa loogu tegi jiray qaybta immigrationka iyo wixii lamida. wayna furan tahay, shacabka way furan tahay, waxaan xirna ma jirto. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Cape Town.